dagaal qaraar ayaa maanta ka dhacay duleedka Xawaadley iyo sidoo kale afaafka hore ee degmada Xawaadley. Qasaare xoogan ayaa jira. Sidoo kale waxaan idinkugu soo gudbin doonaa isla gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan duleedka degmada Warshaaq ee gobolkaas waxaa lagu soo waramayaa in dagaal kale ay ka dhaceen ama dagaalo kale duqeymo culus ayaa xilligan aan idinla hadlaynana ka socda halkaasi. Soo dhawaada saaxiibayaal, wararkii ugu dambeeyay howlgallada ka socda Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose oo aan iyadana si gaar ah u eegi doono ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa ee saaxiibayaal soo dhawaada. dagaal weliba maanta ahaa kii ugu cuslaa iyo duqeymo aad u culus ayaa lala beegsaday dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, waxaana dagaalkan la sheegay iyo duqeymahan in si gaar ah ay uga dhaceen meelo badan oo duleedka Xawaadley ah, ilaa heer la gaaray inay ciidamadu ku sii siqaan oo ay ku dhowaadaan inay gacanta ku dhigaan gudaha degmadaasi Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ka hor howlgalka maxaa dhacay? ciidamo kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee dhinaca lugta ku howlgala ayaa la tilmaamay in ay garbinayeen howlgalkan, sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen ciidamada kuwa deegaanka ee afjar loo yaqaano qayb ka mid ah, halka kuwa kalena la tilmaamay in deegaano kale oo dhowaan ay Al-Shabaab kala wareegeen gacanta ku hayaan si nabadgelyada ay u sugaan ay halkaasi ku sugan yihiin. sidoo kale ciidamo kuwa baangarafta ah oo la tilmaamay inay ka baxeen degmada ama deegaanka Beledoogle ama xirada Beledoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu soo waramayaa inay qayb ka ahaayeen howlgalladan, sidoo kalena dhinaca cirka ay ka caawinayeen ciidankii dhulka ku socday ee militariga federaalka Soomaaliya, waxaana taasi ay keentay in duqeymo culus ay dhacaan. ciidanka dawladda oo xilligaasi qaatay go'aan ah inay la wareegaan Xawaadleyna ay u dhowaadeen, laakiin goob ama meel ceel uu ku yaallo oo ah halka laga galo degmada Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe la ogaaday in shabaabka halkaasi ku sugan ay godad inta ka qoteen ay doonayaan in haddii ciidamadu ay gudaha u galaan sidoo kalena degaan qorshe ay halkaasi ku baabi'in karaan ciidamadu. laakiin militariga Soomaaliya oo feejigan ayaana la tilmaamay inay xogtaasi heleen, kadibna ay halkaasi ka dhacday rasaas xoogan, halka afaafka ahayd ee degmada Xawaadleyna la tilmaamay in dagaal culus la isugu qabsaday muddo saacado ahna halkaasi uu ka socday. ugu dambeyn ciidamada militariga ah ee Soomaaliya ayaana la tilmaamay in xeelad dib u soo gurasho ah ay sameeyeen oo banaanka magaalada ay u soo baxeen, waxaana wararku ay sheegayaan in ilaa iyo hadda qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka aanan la ogeyn, laakiin warar aan helayno ay sheegayaan in rag ciidanka ka tirsan ay ku geeriyoodeen dagaalamayaashii shabaabku ahaa ee weerarkaasi, iyagana la tilmaamay in lagu qaadayna dhaawacyo culus uu soo gaaray iyo sidoo kale qasaare dhimasho ah oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah aanan loo xaqiijin karin. degmada Xawaadley waxa ay ka mid tahay degmooyinka istiraatiijiga ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana la werinayaa in ciidamadii weerarka ahaa ee commandoska xoogga dalka Soomaaliyeed ee weerarkaasi ku qaaday Xawaadley qayb ka mid ah ay soo gaareen dhaawacyo iyo tiro dhimasho ah, halka dadkii shacabka ahaa ee degmada ku sugnaa iyagana la tilmaamay inay soo gaartay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. waxaana wararka aan helayno ay sheegayaan in dadka deegaanka ugu yaraan ay ka geeriyoodeen 3 ruux oo ay ku jiraan ama uu ku jiro hal caruur ah oo la tilmaamay dadka deegaanka uu ka mid ahaa. dagaalkaas ka dhacay Xawaadley kadib ciidamada waxaa la tilmaamay inay dib u soo laabteen oo tuulooyinkii ay ka baxeen ay markaasi qayb ka noqdeen inay halkaasi si nabada ku soo gaaraan. commandoska dhinaca ee baangarafta loo yaqaano ayaa iyagana waday howlgallo xoogan. Xawaadleyna inta aysan gelin ciidamadu waxaa la tilmaamay in gantaallo dhowr ah ay ku garaaceen ciidamada commandoska baangarafta ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay xirada Beledoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. sidaas ayaana ay ku dhaceen dagaaladii maanta ee Xawaadley lagu qaban lahaa, laakiin ma aysan suuragelin. saacadaha soo aadanna waxaa la tilmaamay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan saraakiisha xooggu ay si toos ah u geli doonaan Xawaadley oo ah deegaan istiraatiiji ah oo ay gacanta ku hayaan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, kadib markii halkaas fatahaado iyo sidoo kale arrimo kale oo isbiirsaday ay kaga soo baxeen ciidamadii Burundi ee halkaas ku sugnaa iyo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta ka ahaa howlgalkii tooska ahaa ee Xawaadley lagu qabtay. sidoo kale ciidamada deegaanka ee afjar oo iyagana kaalin weyn ka qaadanaya oo aanan la ilaabi karin doorka weyn ee ay ka qaateen xoreynta Xawaadley ayaa qayb ka ah howlgalladan socda oo la filayo in maalmaha soo aadan gacanta loogu dhigo gudaha degmadaasi Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
aan intaas ku dhaafno xawaadley iyo deegaanada kale ee hoostaga iyo tuulooyinka hoostaga oo ilaa iyo hadda ay ku socdaan duqeymo toos ah oo dagaalamayaasha al-shabaab lala beegsanayo dhinaca iyo sidoo kale warsheekh duleedkeeda deegaan lagu magacaabo Sheekh Yaalow oo ka mid ah deegaanada duleedka ka ah degmada Warsheekh ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa la warinayaa inay ka dhaceen duqeymo aad u xoogan oo ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda federaalka Soomaaliya garabka siiya waxaana la sheegayaa in lala beegsanayo fariisimo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaankaas iyo tuulooyin kale oo dhowr ah oo ka tirsan isla gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa la warinayaa in qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay duqeymahan tooska ah ee deegaankan lagu magacaabo Sheekh Yaalow ay ku beegsanayaan diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee dhinaca cirka ka caawiya howlgalka dhulka ee dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamadeeda militarigu ay ka wadaan ilaa iyo hadda qasaare rasmi ah lama sheegin mana soo shaac bixin inta la gaarsiiyey kooxda iyo inta soo gaartay ciidamada militariga ah ee Soomaaliya sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan gobolkan Shabeellaha Dhexe ayay ka dhaceen duqeymo toos ah oo lala beegsaday dagaalamayaasha kooxda al-shabaab oo fariisimo kala duwan ku leh qayb ka mid ah isla gobolkaas meelo kale oo ka mid ahna laga saaray iyadoona marba marka ka sii dambaysa ay soo baxayaan warar ku aadan geerida rag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan iyo horjoogayaal kooxda ka tirsan oo la sheegayo inay iyagana qayb ka ahaayeen dagaalkaasi ilaa hadda ma jirto warar rasmi ah oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ka soo saartay dagaaladan tooska ah ee ciidamada militariga Soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamiga ah ay isa kaashadeen sidoo kalena ka dhacay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Dhexe aynu intaas ku dhaafno gobolka Shabeellaha Hoose howlgal loogu magac daray duufaanta aamusan ayaa ka socda halkaas oo ay siyaabooyin kala duwan u qaadayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamo deegaan ah oo ay hogaaminayaan gudoomiyaal degmo oo ka tirsan isla gobolka Shabeellaha Hoose maalmihii la soo dhaafay gudoomiyaha deegaanka Dhanaane iyo sidoo kale maamulka guud oo wada jira oo ay qayb ka ahaayeen ciidan ka tirsan kuwa commandoska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la warinayaa inay gacanta ku dhigeen Dhanaane iyo tuulooyinka ku xeeran kuwaas oo sanadihii la soo dhaafay siyaabooyin kala duwan ay u maamuleysay kooxda al-shabaab waxaana la tilmaamay in si dhib yar ay ku qabsadeen ciidanka militariga Soomaaliya iyo maamulka deegaanka Dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose taas oo keentay inay sahasho in ciidanku ay u tallaabaan tuulooyin iyo deegaano kale oo dhowr ah oo isla gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan taas oo howlgalka uu ku siifiday qasaare kala duwan ayaa la wariyay inta howlgalladu ay socdeen in kooxda al-shabaab la gaarsiiyey kuwaas oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo rag la tilmaamay in iyaga oo baxsad ah gacanta ay ku dhigeen ciidanka militariga Soomaaliya oo markii daba halkaas ay ku nafwaayeen ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah oo laga helay howlgalladan iyo halka ay marayaan laakiin saacadda ka dambaysa daqiiqadda ka dambaysa warar kala duwan oo farxad leh ayaa ka soo baxaya howlgalladan maamulka deegaanka Dhanaane ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay shaaca ka qaaday in deegaanku gacanta ay ku dhigeen si buuxdan ay ula wareegeen ciidamada deegaanka iyo sidoo kale maamulka oo wada jira oo garab ka helaya ciidamada commandoska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay siyaabooyin kala duwan howlgalkan uga waday howdka isu xira xeebaha dhinaca Marka iyo sidoo kale Jasiira halkaas oo in badan oo kamid ah gacan ku yinteeda ay maamulayeen qayb kamid ah kooxda al-shabaab oo hadda laga saaray deegaanada Dhanaane Gandarshi tuulooyin kale oo u dhow Markana ay ku siisiqayaan ciidanka militariga oo kaabaya maamulka deegaanadaasi dhinaca kale isla wararka gobolka degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose dhacdo muruga leh ayaa ka imaanaysa halkaas waxaa lagu laayay ari iyo sidoo kale gabar la socotay oo iyadana goobiyaal noqotay waxa wararku ay sheegayaan in ciidan ka tirsan kuwa AMISOM ee halkaas howlgalka ku meel gaarka u jooga ay xira meesha ay ku lahaayeen meel aan sidaas uga fogeen gabadhan oo da'deedu lagu sheegay 13 jir oo dadka deegaanka xitaa magaceeda ay sheegayaan ay halkaas rasaas ku fureen ciidamadan awsam loogu magac daray ee ku sugan gudaha deegaankaasi ama degmadaasi Dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose Allah u naxariisto gabadha geeriyootay waxa ay dadka deegaanka magaceeda ku sheegeen in ay ahayd Firdowso Cabdi Cali oo ahayd iyadana gabar la socotay 20 neef ku dhawaad oo ari ah oo isugu jira ariga noocyadiisa kala duwan waxa la sheegayaa in ku dhawaad 11 neef oo isugu jira
waa ariga noociisa kala duwan halkaas ay ku geeriyoodeen amba ay ku nafwaayeen. waxaana sidoo kale la werinayaa in gabadha iyadana dhaawac culus oo goobta uu ka soo gaaray looga qaaday xarun caafimaad oo isla gudaha degmada ku taalla, laakiin markii dambe halkaas ay ku geeriyootay. ciidamadan amisom ma ahan markoodii ugu horreysay oo dhacdadan oo kale ay ku kacaan. waxaa jirta dhowr dhacdo oo lagu laayay dad shacab ah oo beerahooda joogay, kuwa ka yimid oo guryahooda u soo nasiina doontay iyo kuwa kale oo ka baxayey oo beerahooda u sii socday. laakiin ma jirto isla xisaabtan iyo dabagal dhab ah oo lagu sameeyo marka laga reebo in ay yidhaahdaan waan ku qaldannay, sidoo kalena waxaan iska ilaalinaynay koox argagixiso ah oo doonaysa inay weerar nagu soo qaadaan. maamulka deegaankana ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah oo ay ka soo saareen arrintan, waxaana la werinayaa in waalidiinta gabadhu dhalay ay dalbanayaan cadaalad iyo in loo dabagalo dhacdadan lagu laayay neefafkaasi ariga ahaa iyo sidoo kale gabadhoodana ay ku geeriyootay ambaba ay ku nafweysay. ilaa dhammaadka haddii aad nala soo gaarteen saaxiibayaal, waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan, saaxiibadiina la sii wadaagtaan, qaybta hoose ee faaladan aragtida nagula wadaagtaan.